راس كمبوني إلا راس عصير صدن سنة كور أتصعد لكم مرتي حلقي حكومة دي حس سوماليا ما جرت أرنتا مايا وان تجي كسمايا وان تجي راس كمبوني وان كل وادي لكن ما تجين وان كل وادي قبل هذا معاكم راي بيرليدا وين يكون فريد الجبوين كان وان مري لكن ده سب وحده وما مري محيتها وجدت سعودالك محوها يا قرش كاس حقوق سعود ده وحنا فيلد ورك بان كجري markaan PhD ga sameynayay 9 bilood baan wadanka joogay waxaan data ayaan urursanayay deesan buugii u qoray PhD ga Soomaad garan marka de waan maray dhulka saasaan u maray waxaan indhaha ku hayo aad igu weynaa arrimaha dhaqaalaha iyo poverty-ga maaragtay saboolnimadu intay gaarsiisan tahay dhulka beeraha sidaasaan u tagayna soo arka potential weyn way leeyihiin dhulkaas soo damaad garan wabiyaashta qaarsadan galbeedka Hargeysa wixii xaga ka xiga dadka Soomaalidu badanka koonfureed aad uma yaqaanaane potential weyn bay leedahay in beero wanaagsan laga beero galeyda iyo maxaan ku dhahayaa hadhuudhka iyo qamadiga iyo bariiska arrimo badan in laga beeri karo khudradda laga beeri karo oo dhul badan oo waxa jira durduraa marka sidaasaan u soo marayay kismaayo waxaan u tagay warshadii hilibka inaan soo ogaado saad garanaysid 9 bilood waxay ahayd shaqada research-ka ee aan waday ayaa meelo badan igeysay laakiin si gibtiran يا أو كوست سودان سوماليلاند oo kale u maray laakiin dadka qaar waxay sheegaan waxa la fulay xanti bamooga professor Samatar asagoo daayar oo xilligaas ku jiro oo wadankii nabad ay tahay intaas oo waqti iyo intaas oo qarash iyo socdaal ah in markaas si ayada Mareykanka ay soo dirsatay oo nin meel kale u shaqeynaya aad ahayd waxa research aanu ahayn maxaa dadka fikirkaas aaminsan aad kaga jawaabi lahayd waaba wanaagsan hadii si ayadu lacag amba waqtiga ay siin lahayd ma makaysiinayso waaba wanaagsan lahayd soo hadda garmis oo de wax badan ma ku qabsan laha laakiin taas waxba kama jiraan soo hadda maad gar de marka qofku markuu muuqdo ee hadalkaaga iyo magacaaga la hadiye jeer la hadal hayo waxyaabo badan oo aan jirin oo aan run ahayn ayaa iska sameeysanayaan dadku wax jirana way ku hadlayaan labadaba way jirtaa taasi marka aniga hawl weyn oo igu haysaa ma jirto aniga abahay iyo hooyaday waxay oran jireen oo dadkii kale ay u macnalo dadkii kale ay og yihiin soo adamaadka marka hadii Cabdi Samatar iyo Axmed Samatar iyo meelaha meelba laga sheegayo oo la hadal hayo horta aniga aabahay iyo waalidkii guul bay u tahay soo maadgan annaguna de hadal haystaasi sidaan uga faa'iideysanayno in wanaag ugu soo kordhinayno even markaan runta qadaar ku hadlayno de waxay tahay waajib ayay tahay marka dadka walaalaha ee Soomaaliyeed iyo ku yar iyo ku weyn waxay doonaan hayskaga hadlaan iyagaan taa u deynina waa hadal hayntay kamid tahay xaqna way u leeyihiin annagana sharaf bay noo tahay